ودهورنimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay 27 bisha Juulaay sanada 2020 ku soo dhawaada warka duhurnimo ee shabakada Sirta Media xasan cali kheyre oo xalay kulan gaar ah la qaatay siyaasiyiinta iyo ganacsatada ka soo jeeda beesha Murusade kadib markii uu sheegay inuu aqbalay go'aankii baarlamaanka ayaa u sheegay beesha in dagaalka lagu qaaday uu ahaa mid shakhsi ah oo uu ku qaaday Fahad Yaasiin oo wadamo shisheeye adeegsanaya kheyre oo ay caraba aan ka muuqatay ayaa sheegay in Soomaaliya ay eersan doonto ninka lagu magacaabo Fahad Yaasiin waxa uu sheegay in dalku uu qafaal uga jiro Fahad Yaasiin oo aan lahayn damiir dadnimo iyo mid wadaniyadeed aniga Fahad ayaa ila dagaalay oo isticmaalaya farmaajo waxaana nasiib xumo ah in farmaajo iyo dalkaba uu ninkaasi qaribayo anaga oo indhaheena ay soo taagan yihiin Soomaaliya meel xun ayay u dambeyn doontaa inta Fahad Yaasiin waxa uu doonayo uu ka yeelayo dalka ayuu yiri kheyre oo ay ka muuqatay ciil iyo carabaan waxa uu hadalkiisa ku daray Soomaaliya ha tashato gaar ahaan shacabka reer Muqdisho waxa ay hadda arkeen wax ka sii daran ayaa ku soo socdo haddii aan laga hortagin ninkaasi mujrimka ah kheyre ayaa balan ku qaaday in uu qaadi doono talaabo kasta oo kula diriro Fahad Yaasiin isla markaana uu kaga aargudan doono wixii uu ku sameeyay sidoo kale beesha Murusada ayaa waxad ku martay in aysan marnaba ogolaan doonin in ay qaataan bahdilkii uu Fahad Yaasiin ku sameeyay wiilkooda kheyre dhanka kale madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa ka hadlay shirki ka dhacay magaalada Dhuusamare qaabku u dhacay iyo waxa uu ku tilmaamay dhulgariir siyaasadeed oo lagu majaxaabinayo shirkii wanaagsanaa ee Dhuusamare ku soo xirmay madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani ayaa si furan uga xog waramay waxyaabihii qarsoonaa ee aan saxaafadda lala wadaagin markii lagu sugnaa magaalada Dhuusamare kadib markii uu muuqatay in madaxweyne Farmaajo uu ku wacad furay daacadna aysan ka ahayn shirkii Dhuusamare madaxweynaha Puntland ayaa waxa uu qiray in madaxweyne Farmaajo uu la qaatay qaabka doorashada ee dalka ka dhacaysa in ay noqoto mid u dhaxaysa 2016 iyo mid uu rabay ee ah hal qof iyo hal cod si kale hadii loo dhigo doorasho dadban oo ka wanaagsan 2016 laakiin nooca ay tahay ayaan magac siin kari weynay waxaana ku heshiin in guddi loo saaray dajiye qaabka ayuu yiri runtii khudbadihii niyad wanaag ahaa ee aan ka jeedinay xiritaanka shirka waxay calaamad u ahaayeen sida aan u doonaynay in wada shaqayn wanaagsan lagu galo doorashooyinka laakiin madaxweynaha waxa uu jeediyay khudbad tilmaam bixinaysay halkuu u socday iyo dhulgariirka dhacay madaxweyne Dani ayaa yiri anaga oo jidku ku soo jirnay ilaa cadaado wixii ka dhacay baarlamaanka waxay ahaayeen dhulgariir siyaasadeed oo lagu majaxaabinayay shirkii Dhuusamare waxay ahayd sharci daro qaabka loo maray in ra'iisul wasaaraha xilka laga qaado ra'iisul wasaare kheyre ayuu ku tilmaamay nin aad daacad uga ahaa shirka Dhuusamare doonaya inuu qabto doorasho waqtigeeda ku dhacda waxaan ugu arkaynaa waxa dhacay in uu sababsaday niyadiisii wanaagsaneed ee uu shirka la joogay dhanka kale waxa uu nasiib daro ku tilmaamay in madaxweynaha uu soo dhaweeyo wax sharci aan ku dhisnayn kadibna uu jabiyay dastuurka gaar ahaan qodobka 3 oo uu magacaabay ra'iisul wasaare ku meel gaar ah madaxweynaha waxa uu ku xadgudbay dastuurkii dalku u yaalay sharcigana ma dhowrin ayuu yiri dadka ka faalooda arrimaha siyaasadda ayaa tilmaamaya in madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani uu dib u bartay madaxweyne Farmaajo sidaas darteed uu u jeediyay khudbadda ceenkana si aan madaxweyne Farmaajo mar kale dadku u marin habaabinin isaga oo ka hadlay wixii Dhuusamare ka dhacay sida uu sameeyay fashilkii shirkii Garowe May 2019 dhanka kale madaxweynaha Soomaaliya ayaa wada kulamadii ugu dambeeyay ee uu ku doonayo in uu ku soo xulo ra'iisul wasaare si degdeg ah lagu soo magacaabo muddo yar kadib iscajilaadii kheyre oo ay sidoo kale baarlamaanka codkii kala laabteen warar aynu ka helnay filla Soomaaliya ayaa sheegaya in ilaa xalay ay socdeen kulamo iyo la tashiyo uu madaxweynaha la lahaa siyaasiyiin iyo shakhsiyaad kale oo daneynaya xilka ra'iisul wasaaraha dalka waxa kale oo uu madaxweynaha kulan gaar ah la qaatay gudoomiyaha baarlamaanka dalka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ku-xigeenkiisa Cabdiweli Sheekh Ibraahim Mudde iyo shakhsiyaad ka tirsan xukuumadda Soomaaliya oo ugu horeeyay ra'iisul wasaaraha ku meel gaarka ah Mahdi Maxamed Guuleed Khadar warar ay shabakada Sirta Media hesha ayaa sheegaya in madaxweynaha uu doonayay in muddo toddobaad gudihiisa uu ku soo magacaabo ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka iyadoo ay jiraan liiska musharaxiin badan oo xilkaasi u taagan madaxweynaha waxa uu ra'iisul wasaaraha ku soo magacaabaya muddo toddobaad ah ka hor inta uusan safar dibadda u bixin ayaan ka soo xignay ilo wareejo aan ku kalsoonaan karno lama sheegin halka uu u safri doono madaxweynaha laakiin waxaa jira warar sheegaya in madaxweyne Farmaajo uu wada hadal telefoonka kula yeeshay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed isla markaana uu casuumaad rasmi ah ka helay dhanka kale internetka ayaa weli ka maqan magaalada Muqdisho iyo qaybo kale oo ka tirsan gobolada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya lama oga sababta rasmiga ah ee ka dambaysa internetkan go'an laakiin waxaa jira warar sheegaya inay ku lug leedahay xaaladda siyaasadeed ee dalka dhowr qof oo aan telefoonka caadiga ah kula xiriirin ayaa inoo sheegay in qadadka ama keebaladii internetka uusan go'neen laakiin kaliya si caadi ah loo jaray waxaana arrintan ay ku soo aadaysaa xilli dalku uu ku jira xaalad siyaasadeed oo aad u kacsan gaar ahaan iscajilaadii ra'iisul wasaare kheyre oo ay sidoo kale baarlamaankii kalsoonida kala laabteen inkastoo shabakada Sirta Media aysan si rasmi ah u xaqiijin karin haddana waxaa jira shakhsiyaad caan ah oo dawladda Soomaaliya ku eedeynaya in ay iyadu damisay isgaarsiinta dalka agaasimaha Heritage ayaa sheegay inuu helo xogta ah in dawladda ay damisay internetka sabab la xiriira xaaladda siyaasadda oo kacsan ila wareejo aan ka helay shirkadaha isgaarsiinta ayaa ii xaqiijiyay in dawladda ay damisay internetka iyo xiriirkii telefoonka ayuu yiri Cabdirashiid Xaaji agaasimaha guud ee Heritage
agaasimaha Heritage ayaa sheegay in talaabada dowladda federaalka ay qaaday ay dhaawacayso dhaqaalaha muwaadiniinta gaar ahaan kuwa Galmudug iyo Jubbaland oo aan lacagahooda isugu diri karin adeegyada telefoonada. dowladda waa inay arrintaasi soo dhamaysaa ayuu hadalkiisa ku soo dhameeyay agaasimaha oo fariintaasi soo dhigay boggiisa gaarka ah ee Twitterka. dowladda federaalka ayaanan wax wara ka soo saarin arrintan, laakiin waxaa la aaminsan yahay inay ku lug lahaan karto xaaladda siyaasadeed ee dalka oo waayadii dambe aad loogu falanqeynayay baraha bulshada. intaasi waxay ahaayeen wararkii ugu dambeeyay ee ilaa haatan ina soo gaaray. wixii warar dheeraad ah oo soo kordhana waxaad si rasmi ah uga heli kartaa shabakadda Sirta Media. adigoo weerin warar sugan oo xaqiiqa waxaad ka helaysaan waa Sirta Media.